بسم الله الرحمن الرحيم. رمانتي نوال السلامي. دulmidiid Soomaali oo dhan inta samaha jecel intii ka dagaalantay cadaalad darrada inta jecel cadaaladda iyo sinaanta iyo dhammaan taageerayaasha reer Dulmidiid waan idin salaamay dhammaantiin. waxaan rabay inaan dhowr qodob ka hadlo. ta koowaad kooxdii cabdiilay iyo hadhaagiisii iyo inta hadda la shaqeynaysa waxay saaka soo dhigeen baraha bulshada video laga duubay habeenkii Addis-Ababa lagu afduubay. videoga waxaa duubay qolihii afduubay cabdiilay soo diray. saad video ku arkaysaan qofka videoga duubay meel qof kale xabad buu igu hayay. waxaana su-aalo la weydiinayay ku saabsan Dulmidiid iyo waxaan ka soo doonnay meesha si cad oon gabasho lahayn. waxaan uu sheegay inaanu u nimid sidii aan cabdiilay u hidi lahayn. rabadaantii baa ahayd. ilaahay wuu inagu guuleeyey dhammaanteen intii ka qayb qaadateen waxaan leenahay ilaahay maaragtay idinka jasaay siiyo. waxay sababta hadda ay u release gareeyeen ama ay u leak gareeyeenna waxaa weeyaan to silence me. laakiin xabad baan nagu silence gareyn kari waayay haddaan nahay reer Dulmidiid, haddaan nahay dadkii kacdoonka shacabka ee ka dagaalamay dhibkii cabdiilay ummadda uu ku hayay. wax kasta waana lagu sameeyey. waanan runtii u barbar dhignay wax kasta oo naga yimid xaggiisa. marka taa iyada videoga ay release gareeyeen waa purposely weeye. waqtigana waa good timingkana waxaad filayaa inay rag xarifaan oo raggii ka dambeeyey afduubkayga cabdiilay iyo kooxdiisii
haddeerna la shaqaynayaan filayaa kooxda cusub ee Jigre joogta in ay videoga release gareeyeen. Videoga la release gareeyay wuxuu caddeynayaa halgankii ummadda aan u soo galay, khaasatan anigu Khadar ahaan dhibkii iga soo gaadhay. Habeenkaa waxaa la damcay in lay dilo. dhowr goor baa sidaad arkayseen gaadhiga intii la joojiyay gidaar lagu tiirayay. meel ay mariyaan unbay waayeen mooya Cabdiile iyo kooxdiisu. They tried their best in maaragta habeenkaa lay dilo. Videoga la release gareeyay Cabdiile baa wuxuu ku yahay evidence afduubkii uu maaragtay aniga ii geystay aad sabab u ka sameeyey. dunuubtiisii faraha badneyd unbay qayb u noqonaysaa. Videogana waxaan rajeynayaa in la preserve gareeyo, maaragtay la save gareeyo si uu evidence ugu noqdo halgankeenii Cabdiile, inuu evidence ugu noqdo maxkamadda markii la keeno. cid kasta oo ka dambeysay I don't care, laakiin waxaad moodaa in rag xafaan oo very shrewd political animals inay maaragtay hawshan ka shaqeeyeen. laakiin aniga sharaf bay tahay, reer Dulmidiid sharaf bay u tahay. dadkii ka qayb qaatay dumintii cadaadiskii Cabdiileyna sharaf bay u tahay. waana chapter ka mida chapteradiina soo maray. ilaahay mahadii waan ka badbaaday isku dayga dilkaas. waxaan u mahad celiyay habeenkii dowladda federaalka ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga Matoma Mukase oo habeenkii runtii qaatay qayb libaax laga qaatay in release-kayga iyo in la qabto ninkii tuugga ahaa ee Cabdiile u soo diray. cabdixaashi Shabeel oo runtii habeenkan roggii meesha jooga hogaaminayay waxa uu ka qaatay isaguna qayb libaaxle. isagaa wacay wasiirka. nasiib wanaag maalinkaa habeenkaa la afduubaya aroornimadeedii oo wasiirka gaashaandhigga la kulanay. marka cabdixaashi wuxuu hayay cellphoneka wasiirka, markiiba ugu wacay. waxaa lagu taagereeyey waana la qoray gaadhigii lagu qaaday oo Cabdiile gaadhi V8 u iibiyey ninkaa tuugga ah. taarikhdiis baa la qoray. cellphonekii aan watay nasiib wanaag igamay qaadin. cellphone yar baan watay oo jeebka igu jiray. oo saad arkaysaan video haddaad si fiican u fiirsataan cellphoneka dhacayaay mobileka dhacaya mobilekii raan watay. kaasaana runtii badbaadiyay habeenkaa oo lagu taagereeyey nimankaas. numberkii baa loo sheegay, telefonkaan watay. wasaaradda gaashaandhiggu markii waxay iyo sirdoonku waxay heleen GPS trackingkii. markaas taasi waa taawey oo maaragtay wax problem ah. yacni waxay inoo tahay badge of honor. halgankii Dulmidiid dadkii ka qayb qaatay nin ka mid ahaa oo runtii dadkii guusha keenay ayaa caddaynaysaa. waxaa laga yaabaa kuwa hadda madaxweyne Mustafa Cumar ku dhadhow iyo Cabdiile kooxdiisii oo wada shaqaynaya si loo silence gareeyo dadka reer Jigre oo meeyarkoodii ay ummaddu dooratay lagu soo duulay. runtii ummaddu ay doonayso inuu hadda u shaqeeyo oo la rabo in intii laga remove gareeyo qof yes man ah oo danahooda u shaqeeya oo shaqeeya inay keensadaan inay ka dambeeyeen bay u badan tahay. cay fara badan baa ilaa xalay hore la iisoo qorayay ama luuqa la iisoo marinaya publicaba la igu soo qorayay, laakiin anigu taasi mid wax yeelaysa maaha. waxaan u kacnay ummadda Soomaalida ah ee gobolka degan inay xuquuqdooda helaan, sinaan iyo cadaalad ay helaan. dadka localka ah lagu ixtiraamo sharafta iyo maaragtay cid kasta ay xaqa ay u leedahay inay iyadu ismaamusho in loo daayo, faragelintana laga daayo. sida aad la socotaan shalay waxaan aada uga hadalay arrinkaas runtii foosha xun madaxweyne Mustafa Cumar uu kula kacay dadkii reer Jigre. garaadkii isagu uu magacaabo 3 weeks ago uu maaragtay haddana isagoo ka dhex arki waayay danihii markaa uu ka lahaa baan filayaa
إن يعني أمور مرسيو شرع دياسبرا جرا شرع دياسبرا شرع نواشر ليه هذا لو كل لنا صدق عن موضوع خصوصية وكلية وهير فدرال كو وقاش عندك لو وصدونك صدق ووزارة أرماد بيد أو دبلوماتيك مركا ماشا municipality Jigre أو shaqadiisu ay tahay in uu qashinka magaalada ka guro bilicdeeda magaalada hagaajiyo biyaheeda uu maaragtay wax ka qabto meesha uu ka soo galay Mustafa Cumar baa inoo sheegaya waxaan ku baaqayaa shalay waxaan ku uri boqortooyadii reer walba hadlaysa dhagiina aad furo waan ku celinayaa mar labaad dhagiina aad fura waxaan ku baaqayaa in maalmaha soo socda haddii la isku dayo xil wareejin in laga sameeyo dowladda hoose shacabka reer Jigre inay arrinkaa hor istaagaan ay diidaan 1 milyan march baa ku baaqaya inay isu soo baxaan waddooyinka la xidho la tuso awoodda shacabka inaynan noqon karaynin actually inaan loo adeegsan karin si khaldan shacabkuna ay diidaan sidaan hore u sheegay madaxweynaha weli waan taageersanahay waana u mahadcelinayaa jawaabtii uu maaragtay arrinkayga kaga jawaabayay xalay facebookyada uu maaragtay facebook pagekiisa uu ku qoray it was very respectful laakiin hal qodob wuxuu ku khaldamay personal gain inaan u soconno saan shalay sheegay personal gain haddaan u soconno kursiga adoo aad ku fadhido waxaan ku dagaalami lahay Cumar Doole inuu ku fadhiisto oo garaadkii ah oo guddoomiyaha Dulmidiid ah xaq u leh intaasuu madaxweynaha soo martay regionka reer Jigre ilaa iyo hadda madaxweyne kama noqon marka annagoo eegayna danta guud iyo Mustafa oon aaminsanayn ilaa haddana aan aaminsanahay inuu he can be a good president waxaanu nidhi Mustafa waxay noo qabtay doorka weliba ballan baa jiray ahaa haddii Mustafa uu noqdo madaxweynaha inuu Cabdiwaasac Cabdilaahi Bede uu noqdo ku-xigeenka Cabdiwaasac Cabdilaahi Bede hadduu noqdo madaxweynahana inuu noqdo ku-xigeenka Mustafa inuu noqdo ballankaas ayaa jiray madaxweynuhuna wuu ogyahay cidda ku hareeraysana way ogyihiin runtii ballankii annagu waa ka soo baxnay waan tanaasulay Mustafa laakiin markii ugu horreysay ee uu Jigre la tegay waad ogeydeen maalinkii sidii naloo soo dhaweeyey anu qayb baan ka mid ahaa waftiga qayb baan ka ahaa waxaa naloo soo dhaweeyey si ballaaran oo runtii maaragtay dadku ay si wanaagsan noo soo dhaweeyeen reer Jigre dhammaantood ilaa miyiga laga yimid annagoo airport ka soo degaynaa dhalinyarta reer Jigre waxay taagnaayeen ilaa ay kaaramarray taagnaayeen iyagoo og inaan airport ka soo degayna to show a solidarity madaxweynuhu runtii arrinkaas waxay ahayd sida ugu fiican in uga faa'iidaysto there was a lot of goodwill waxaa loo soo maaragtay loo soo dhaweeyay si aan caadi ahayn because dictatorkii ka horreeyay dhibka ummadda uu ku hayay oo la ogaa darteed ayaa runtii si sharaf leh loo soo dhaweeyay hekaabka ama higadii ugu horreysay waxay nagu dhacday habeennimadii aan usoo habeynay Jigre markii arrinkii la isku ogaa shalayna waan idhi haddana waan ku celinayaa Cabdiwaasac Cabdilaahi Bede si khaldan oo Mustafa oo noqday that was a colossal mistake uu sameeyey half of the goodwill-kii maalinka ugu horreysay aan aragnay next day was gone marka intii ka dambeysayna iyadoo meel soka wax laga eegayo qodobka diasporaha oo weligiina la isticmaalin sharciyan markii constitutionkii dib loogu noqdana runtii ayna Xuseyn heer deegaan Mustafa
raggii lasoo isaga maaragtay halganka la soo galay ee ama dulmidiid ahaa ama siraaj ahaa dhammaantood sharcigii buu isticmaalay. maba xume sharcigaasi annagoo eegayna danta guud waxaan nidhi qof ka hadli karaa ma jiro, dhammaanteeda waan rasaan karayna isna wuu ogyahay. ballan kalaan markaa wada galay garaadku maadaama uu municipality yahay inuu exempt ka yahay fikirka maaragtay hawshaa meesha ka socotay, wuxuuna ballan qaaday madaxweynuhu wax kastoo la akriyo garaadka inaan lagala hoos baxayno. ballankaasna mid ma aha uu ka soo baxay, ballan la jebiye weeye. waa ballan kii cabdiwaasi cabdillaahi bade, kii raggiisii koorka ahaa oo dhammaantood uu maaragtay harulaha lagu daray, iyo kii saddexaad oo ahaa garaadka. arrinka garaadka markaas shacabka reer Jigre way ka dhiidhiyeen, waxayna yidhaahdeen enough is enough. ma ogolaanayno cid damba oo sida cabdilay intii noola soo magacaabo ama kuwii hore dhagaxbuur iyo goday iyo meelo kalaba laga keeni jiray, kuwa reer Jigre ah oo ay og yihiin inay ka fushanayaan wax allaale waxay rabaan, oo og yihiin inuunan yacni wax hawl ah uunan ka qabanaynin dhulkii la boobay iyo hantidii laga dhacay dadka masaakiinta ah, ay og yihiin in uunan ku soo celinaynin wax hadala cid ama xafiiska madaxweynaha ka socota ama madaxweynahaba oo danta ummadda ku saabsan. sometimes hadduu waxa amarka lagu siinayo oo khalad yahay, you have to be able to say no. qof noocaas oo kale ayay rabaan inay meesha keenaan. dhammaan dhalinyaradii odayaashii dadkii reer Jigre waa wada hadalay, waxay diyaar u yihiin inay sharaftooda iyo sumcaddooda iyo cisigooda ay difaacaan ilaa uu madaxweynuhu ka noqonayo go-aanka khaldan. waa bini aadam, go-aan khaldan qofku qaadan karaa, laakiin shacabkaa ka awood badan hal shaksi. waa madaxweyne siduu sheegay, qofku isagu appoint gareeyo he can maaragtay haddana maaragtay appointmentkii dib uga noqon karaa, laakiin marka ugu horreysaba sabti meesha ay ka qurunto waxaa weeyaan kow dadka localki waa inay iska dhex doortaan ninka qofka meeyarka noqonaya, ma aha in madaxweyne soo magacaabo. sababtii reer Jigre dhulkoodii lagula wareegay waxay cabdiilay inuu keensado qof yesmana oo isaga u shaqeynaya, kabacdina ummaddii hantidoodii iyo dhulkoodii lugsaa lagula wareegay. waxaad arkaysaa ninkii maaragtay meeyarka ka ahaan jiray habeenkii dhowda wareysinay jeligodan ku jiray, waxaan diiday buu yidhi dhulkii shacabka uu lahaa masaakiinta ahaa in si khaldan loo isticmaalo, hebel si heblaayasi iyadoo wax barqada loo soo qoray. arrinkaa dhulka iyo waa arrinkii dhibaatada Ethiopia kow ay ka bilaabatay. sidaad la socotaan Addis Ababa dhibkii ka dhacay iyo Oromo waxay ka dhiidhiday dhulka Addis Ababa buu ahaa. markaa dhulku mar kasta dhibaatada dhulka ka bilaabatay way ka adag tahay dhibaatooyinka kale ee ama qaab siyaasadeed ku yimaada. madaxweynaha waxaan kula talinayaa inuu arkaa ka noqdo, u daayo garaadka shaqadiisa inuu qabsado, shacabkiisa wata, annagaa wadana, ummadda ilaahay oo dhan baa wadata. waxaan leenahay Mr. President back off, arrinkaas ka noqo, dalkuma aha. maalmaha soo socda marka ay isu soo baxaan dadkii reer Jigre oo dhan ilaa miyigaa laga imaanaya. waxaa laga imaanayaa magaalooyinka ku xareereysan Jigre oo dhan si ummadda sharafteeda loo difaaco. haddii ay hawshu sii socoto, dhawaaqanka ku xigaa wuxuu noqonayaa inay ummaddu u istaagaan removal of Mustafa Cumar. shacabku in ay u istaagaan sida adiga lagu remove gareyn lahaa.
waxaad og tahay awoodda shacabku inay tahay mid aan la loodin karin. Ethiopia hadda nidaamkan dimuqraadiga ka hirgalay, waxaan awood u leenahay dadkii finfinne shalay isugu soo baxay dad la eg inaan soo saaro oon adiga kugu diidna weliba. I'm not going to that far hadda so far. waxaan leenahay madaxweyne waa dadkii ku jeclaa haddeerna ku jecel. cabdiilaysaa ulmaana hadda jirin, waayo waxaan ogeyn xumaantiisu ilaa xadka ay gaarsiisan tahay. laakiin adiga waan ku jecel lahay. madaxweyne waxaa tahay ku yimi kacdoonka shacabka. dadkii kacdoonka u ahaa madaxda ee cumar dool iyo ay ku jiraan group, anigu aan ka mid ahay. madaxweyne ciddii ku siinaysaa taladaasi waa talo khaldan, nasteexna kuma aha. waadna tusi kartaa awood inaad ciidan koonfur casitaad keento cumar oo xafiiska fadhiya in laga remove gareeyo. waa possible, waan ku talagelaynaa. laakiin waxaad ogaataa arrinkaasi in aynan ku cuntami doonin. hawshu inta ay dhowdahay baa tahay in wax laga qabto. abaabil xoog laa hadda socda. I just got off a phone from Jigre. dhammaan Jigre iyo magaalooyinka ku hareereysnaa waxay diyaar u yihiin iyagoo millionsa inay waddooyinka Jigre lasoo buux dhaafiyo oona maaragtay weelweel ka raacay. igama ahan jawaab, waxay iga tahay nasteex. weli waxaad moodaa nidaamkii Tigreega ee cadreismka ahaa inuu meesha weli ka jiro. waxaan ku aragnaa waxyaaba badan oo mistrust ah. dadkii la magacaabay oo aan trust badan aan meesha jirin. maalin weydnin baa wuxuu weydiinayay, wa nimankan meesha joogaay yimid hadda ma Tigreegii bay kadriin u ahaayeen? waxbaa lagu sheegay, waxba kama jiraan. waxaynu u baahan nahay in aynu runta isu sheegno. inaan run kuu sheego runkuma yaali. madaxweynuhu go-aanka uu gaadho ha ka fiirsado marka hore, laakiin go-aankaasi waa inuu noqdaa mid maaragtay wakti leh oo qofkaasi haddii uu dunuub yeesho mooye yacni sheekooyin raqaysa iyo od hebel iyo heblaaya u tagtay iyo hebelkan waxba ka cunmayna iyo danihii reerkaa meesha ku lumaya iyo arrimahaas runtii waxaa loo baahanya madaxweynuhu inuu ka foojignaado oo uu ummadda si maaragtay cadaalada maaragtay u dhaqo, u wado hawsha u wado. maalinba maalin ka dambaysana hawsha way sii adkaanaysaa. qaar badan ba waxay iisoo qorayaan qabyaalista tahay. annagu reer Dulmidiid haddaan nahay qabyaaladu waa naga reeban tahay. laakiin haddii aanu aragno wax khaldan fartaanu ka saaraynaa ilaa uu madaxweynaha ahaado. isagayna dan u tahay madaxweynaha in si nasteex wax loogu sheego. si nasteex in wax loogu sheego isagay dan u tahay. isagay dan u tahay in ay Jigre nabad ay kaga fadhido. guuxa magaalada ka socda madaxweynuhu hadda wuu ogyahay, wuu la socdaa. kolley jawaasiis iyo sidoon buu magaalada ku dhex leeyahay. arrinkaasi uma aha dan madaxweynaha. bayskiisu waa Jigre ku wadata Mustafa Khadar oo Jigre ku wadata. therefore waxa ay Jigre gacan dahaba iyo kusoo fiisay, you have to receive it in the same manner.
waxyaaba badan oo kala rabaa inaan ka hadlo laakiin waxoogaa reservation baa igu jira. I reserve a little bit. waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdaa haddii hawshu ay sida loogu talagalay ay maaragtay iyo shacabka doonistiisa aan la tixgelinin waxyaaba badan baanu hadduu ilaahay yidhaahdo ummadda horkeeni doonaa. hadduu ilaahay yidhaahdo ciddii aflagaadoonaysa iyada jirtaa, ciddii afduubkaygii iyo iskudaygii dilkayga ku faraxsan iyada jirtaa. laakiin waxaan ogahay in ay howlo badan oo aan loo baahnayn ay socdaan. madaxweynahan aan dan u ahayn maalinkii la magacaabay cabinetka runtii waan soo dhaweynay ee loo ansixiyey. waa cabinet waxtar ah, rag badan oo maaragtay waxbartay baa ku jira. laakiin qaabka loo maamulay ku-xigeenada it's completely reverse. waan ogahay gobolka jarar wasiiradii cabinetka inaan markii hore qofna loogu soo darin, laakiin waxay nasiib u yeesheen ugu yaraan 8 wasiir ku-xigeen oo muhiima inay helaan. walaalaheen weeye, kama xumin. marka nidaamkii waxaad moodaa markaan leeyahay nidaamkii cadrega ee maaragtay Jigre baa meesha inuu ka socdo moodaa. raggani laga yaabaa raggii wax soo bareen inuu yahay u badan yihiin. ninka wasiir ku-xigeenka ah ee Jigre wuxuu ka awood badnaa wasiir kasta oo Ethiopian. so you do the math. xisaabta aduu isku darso. laakiin taas hadda yani arrinkaasi arrin aan kasii hadlayna oo ma aha. oda dhacday sida loo kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa. number 1 madaxweynuhu qodobkan rejigiiyo gafku ka galay oo gafka waa inuu ka noqdo, weliba apology ka bixiya. haddii hawsha ay saa noqon weydo waxaan dadku ugu yeedhaynaa inay complete removal of maaragtay xukuumaddiisa inay sameeyaan oo maalin kasta taxriirka la taagnaado. every single day madaxtooyada loo taagnaado, 100,000 dadku iyagoo ah, centriga magaalada la taagnaado. kabacdina awoodda shacabku will prevail. kuma baaqayno in dad la dhibaateeyo, kuma baaqayno in dad innocentia wax loo geysto. rejigti waxaan idin leenahay weliba marka aad soo baxdaan magaaladiinii weeye, idinku ilaashada kala dambeynta iyo maaragtay nidaamka si peacefula u protest gareeya. dowladda federaalka a gacanta ku haysa ammaanka magaalada, ciidamada federaalka ha loo sheego. way ogyihiin dhibaatada ay rejigiga tabanayaan, iyagaana idin ilaalinaya. iyaga ayaa shacabka ilaalinaya, ciidanka federaalka. constitutionka Ethiopia idin fasaxaya inaad si peacefula aad isugu soo baxdaan. waad arkaysa shalayto 3 million baa isugu soo baxday Finland. sidaas oo kale xaq baad u leedihiin. waddanku hal constitution buu leeyahay. waan ognahay inay maaragtay mini state of emergency ka jiro kilkeena, laakiin wax sharciyad ah oo laalay dadka inay si nabadgelya u soo baxaan ma jiraan. arrinka ciidankaad kala tashanaysaan, ciidamadu iyagaa idin ilaalinaya nabadgelyadiina iyo magaaladaba. idinkuna waxaan idinka baahan yahay si peacefula inaad danihiina iyo aad u sheegataan. marka waxaan rajaynaynaa in sheekadu ilaa maaragtay xadkaa ayna gaarin. waxaan codsanaynaa very simple, laakiin saan shalis sheegay the power actual qofku markuu power helo waxay corrupt garaysaa qofku thinkingkiisa iyo sida u fikirayo. waa madaxweyne, waa yani wuu samayn karaa tomorrow inuu maaragtay intuu askar u yeedho cumar oo isniinta fadhiya xafiiskiisii in la yidhahdo ninka xilka ku wareeji.
laakiin maxaa ka dambeynaya wey waxaa ka dambeynaya shacabku inay gadoodaan oo ay diidaan marka waxaan leenahay Mr. President sidii aan kuu support garaysnay baan kuu support garaysanahay waxaan leenahay guddoomiyaha xisbiga we support you maaragtay 100%. waxyaabaha qaarkood oo keenaya inay ummaddu ay yani cabashadoodu ay isu bedesho kacdoon waxaa loo baahan in laga taxadaro laga digtoonaado dad badan oo qabiileynayaan arkay wixii laakiin haddii qof dulmidiid ah intii qabiildahre loo magacaabo isaga oo aan dhibaato keensanin saaxiibka jamaal weli waxaan rajeynayaa inuu noqdo duqa magaalada qabiildahre isagoo markaa aan wax dhib ah geysanin haddii after week la yidhaahdo waa la remove garanaya sidaan garaad cumar dool aan maaragtay aan ugu dagaalamayno ayaan ugu dagaalamaynaa waana principle aan aaminsanahay waa principle aan isku ognahay reer Dulmidiid khalad markaan aragno hadda wakiilka ugu sarreeya Dulmidiid in United States hadda jooga aniga wey guddoomiyihii saakaa wada hadalay waxaan ku hadlayaa fully afka guddoomiyaha ku hadlaya arrinka aan leeyahay mid aan iska leeyahay maihi waa mid aan ka wada socono guddoomiyaha Dulmidiid hawshuna hadda meel fiican bay maraysaa waxaan rajeynaynaa inay maaragtay we will do everything we can hawsha inay degto oy si fiican maaragta ku dhammaato laakiin haddii aan u aragno in ummaddanadii sanka laga marmarayo oo aan tixgelinteedii iyo miisaankii ay lahaayeen aan la siinaynin we will say no and we will say very loud and clear and Jigre will speak insha Allah loud and clear waxaan rajeynaynaa ummad isu soo baxay inta ugu badnayd Somali region taariikhdiisa intuu jiray inay isugu soo baxda hadduu lahayda taa markaa intaa kaga baxo reer Jigre wixii kale tabanayeen oo dhanna miiska in la soo saaray u baahanta kow ay ka tahay madaxweyne ku-xigeennimadii madaxweyne ku-xigeennimadii miiska in la saaro ayay u baahantaa laga hadlo arrinkaasi ma aha mid aan ciyaar kaga hadlayno hawsha hadday sii badatana insha Allah markii ay aan ku soo celino gacanta shacabka madaxweyne ku-xigeen iyo ka badanba reer Jigre xaq bay u leeyihin marka khayr baan idin rajeynayaa dhammaantiin reer Dulmidiid Soomaali oo dhan inta wanaagga jecel inta xumaha jecel ee ku faraxsan afduubkii la afduubay ee videogii ninkii tuuggaha iyo afduubay iyo kooxdiisii ay duubeen oo si cad aan ugu sheegayo sababtaan u nimid Ethiopia inay tahay removal of Abdilay you can listen annaga sharaf bay noo tahay waxayna caddaynaysaa dhibkii aan ummaddan usoo marray dhibka aan usoo marrayna kama yeelayno ciday doonta ha ahaatee in ay si khaldan powerka intay u isticmaasho ummaddeeda lagu dhibaateeyo we will not allow that we will be very respectful anigoo qof caaya iga maqli maysaan anu waxaan ku doodayaa waa principle iyo valid point
سواعي يا يمكن أربعة حيث قرية ما قابت هاي كانت هاي قبلها أنا وحى عن كو دودي وحقوقي ضدك سعيدة هاي كبير أبدا ما أدري أنتي من داونيسا waxaan rajeynaynaa inaan isku soo noqono hadduu ilaahay yidhaahdo hal qodob oo kale aan ku darayaa dhibaatadii loo geystay ummadda jaarse ee walaalaheena ilaa iyo hadday socotaa ilaa iyo hadda ayay socotaa oo loo diidan yahay xuquuqdii ay ku lahaayeen rijinka Soomaalida markii horena waxaa jinacsani iyo dhulkaas oo dhan oo runtii dhulka ugu hodansan ah Somali region ay Oromo ula galeen waxa ahayd dhibaatooyin iyo xuquuq darro lagu sameeyo ummadaas Oromiya hadda waxa uu jirto Jigre waxaana keenay kibir iyo isla weyni Soomaali kuwii u talinayay oo ogtihiin kuwa iyagu ahaayeen inay xuquuqda ummadda ay duudsiyaan waxaabay ugu waaweynaa intii aan Jigre tagay aan ka hadlayna waxa ahayd in la soo celiyo ummadda Oromo ee Soomaalida ah xaqii ay ku lahaayeen rijinka waxaa nasiib darro ah maalinkii cabinetka la magacaabayay completely in laga dhex waayay reerkii subaxii baan markaan soo toosnay aan aragnay liiskii baan ku nidhowday sida ma soconayso markaasaa gabadha haweenka loogu qoray subaxnimadii walaalaheen jaarse waan garab taagannahay dhibka maaragtay xuquuqdoodii lagu duudsiyana waa diidannahay iyagana waxaan leenahay walaalihiin geri koombe oo ad walaala tihiin oo isdhasheen oo ad wada degan tihiin la heshiiya iyaga cid kasta idinka xigay insha allah waan soo gabagabeynayaa maaragtay live-kan dadka dulman oo dhan baan u doodaynaa inta wax dulmaysana waxaan leenahay ilaahay ka cabsado oo dulunka ummadda halga daayo iyo dhibaatada aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan haddii ilaahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.